wafdi dhaqan oo ay hogaaminayaan Boqor Cismaan Nuur Dhuubow iyo Suldaan Cali Islaaw Ciise ayaa gaaray tuulada Nuukay oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan xureynta jiinka oo heegan u ah difaaca jiinka. soo dhaweyn iyo salaan ciidan ayay ka heleen wafdiga marka ay gaareen Nuukay, waxaana salaanta ciidanka ay u dhacday sidan. شرط لك سو دواada ciidanka deegaanka xureynta shiidlo u diyaaraya inay ku xoreeyaan wax walba cadow ah ee ku soo duulay deegaankooda iyo dhulkooda. salaantaas ciidannimo laga guddooma soo dhawaada insha Allah biidhnillaahi kariim. duubabka dhaqanka ee gaaray Nuukay ayaa warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidanka xureynta jiinka, kuwaasi oo ka waramay ujeedada ciidanka iyo sida loo diyaariyay. waxaan diyaar u nahay in aan la dagaalno nimanka loo yaqaan argagixisada al-shabaab. waxaan diyaar u nahay in aan dalkeena, dadkeena, diinteena aan difaacano. nimankan nabadiida ah waxay diyaar u yihiin in ay wadankeena ama dalkeena in ay ku takhrifulaan, laakiin midaas midaan qaadan doona ma aha haddii aan ahay awaanduulaha ciidamada. waxaa maanta halkan iskugu nimiday bilaha 6 shiidlo suldaankooda iyo boqorkooda iyo mas'uuliyiintooda kala duwan nabadoonadooda. go'aankaas oo ah in aan howlgalka socdo aan dhinac ka nahay dib u xoreynta jiinka hubiga Shabeelle, taasoo go'aankeeda uu yahay ama hadafkeeda in laga xoreeyo qolada nabadiidka ah ee lagu magac daray al-shabaab. waxaana go'aankaas ka soo baxay beelaha 6 shiidlo saraakiishooda anoo ah taliyihii guud ciidamada dib u xoreynta hubiga Shabeelle Xanafi Sheekh Isxaaq Kulmiye. nabadoonada 6 shiidlo ay wehelinayaan socdaalka boqorka iyo suldaanka beelaha 6 shiidlo ayaa qudhooda u dhiirigelin u sameeyay ciidanka. waxaan rabnay haddaan nahay odayaalkii oo duubabka ahay ciidamadiina dalka Soomaaliya ama Hirshabeelle ama Shabeellada Dhexe dadkii xorey lahaa idinka kow ka tiingo dad yaani saraakiishii sareysana ka amar qaata, saraakiishii idin horjoogtana ka amar qaata. dawladda federaalka waxaan u sheegaynay insha Allah ta'ala waxa waaye xaq ma ogtahay haddii Ilaahay ma hadin dadka dhan in laga simo jidka ku jiro. dadkan dawladda federaalka ay ka socdaan, dawlad goboleedka Hirshabeellena way ka socdaan. haddana ay noqonin khudba sireed in ma aragti ay noqoto oo ma aragti dadna wax la siinin ay noqonin. insha Allah ta'ala wax kasto la bixinaayo ciidankaas xaq iyo xuquuqa u leeyahay warkeeganaada waaye. Suldaan Cali Islaaw Ciise oo ah suldaanka beelaha 6 shiidlo iyo waliba Boqor Cismaan Nuur Dhuubow oo ah boqorka beelaha 6 shiidlo ayaa ka hadlay khudooda goobta. وأنت وحي تاجتا مربنا أنك فبقلبنا مربنا لسانه مربنا فليغير بيده قعنتم كزولينينا سراكيش وحن فراء بلا لحد شيل وسرقال حنيف أو جهريو إني جاري ذي قبل كجستان كحوريان جين كهوي أو إسك حوريان معنا نبديد كشوابه وعد كست أصول لكتان نول وحجرته وحفامة دين تفامة إني بابا يعني أصول لكتان وضلك جماعة كوهايو زكي أنجين خاضايو ده كان بين وشيجايو إن إسك حوريان بيها وكسود دينايو زكي بينا كقادنا إن إسك حوريان ديار أمتين وردرها بيا الحري يا لو بركعي سكنوا وإقرب تاي بيرتنا أذا قوية سدام هرتكوها شينا أني أذيق هالشيء ما بنا الأحمر كره بياد يقول دايسي سكاودنا وإقرب تا وحشقايا ما نميو وحوايا مانت وحن أتاجنا هاي هير يدا نصارى إنا إسكد الجنو دولة فدرال كانوا حن قعد سينا قرب استاك مقل إنا كهلو sababtoo ayda cilaamisay Soomaaliina waa abtirsatay Soomaali maanta waa abtirsatay maxay ku abtirsatay nin walba gobolkiisa had difaacday culayska iska qaado Soomaaliya tiri anaga ma dhihin shiidlana hadda waxay diyaar u tahay inay heeryada iska qaado culayska iska qaadooy dagaalkii madaxweyne Xasan Sheekh cilaamiyay
nin walba gobolkiisa ha xoraystaa li rashiidlana inay gobolkeeda xoraysato diyaaray u tahay ma isku raacni mase laablaabaa naaga jira sida uu qorshaha yahay ciidankan ayaa xoojin doona ciidamada xureynta jiinka webiga oo muddooyinkii dambe dagaal kula jiray al-shabaab maxamed yaasiin mahdi maxamed ee qalfa Universal TV tuulada Nuukay gobolka Shabeellaha Dhexe